ayadoo baarlamaanka maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya todobadii bishan la dhaariyay ayaa kulankoodii ugu horeeyay waxa ay maanta ku yeesheen xarunta madaxtooyada maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya ee magaalada Baydhabo waxayna ay mudanayaasha ay doorteen gudoomiye iyo gudoomiye ku-xigeen oo ku meel gaar ah kuwaas oo lagu soo doortay da'dooda waxaana la sheegay in ay xilka sii hayn doonaan muddo kooban ilaa laga soo doorto gudoomiyaha rasmiga ah ee uu yeelan doono baarlamaanka maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya waxaana gudoomiye loo doortay General Ali Xasan Isaaq gudoomiye ku-xigeenna waxaa loo doortay Maxamed Xasan Cismaan waxaana sidaasi ku dhawaaqay mid ka mid ah maamulayaasha doorashada baarlamaanka maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya Abduqaadir Ajuuke maanta oo taariikhdu ay tahay 10 bishii 2014 baarlamaankii koonfur galbeed waxa uu doortay gudoomiye kumeel gaar ah taasoo ay nafarayso dastuurka koonfur galbeed ee Soomaaliya qodobka 64 ee dastuurka kaasoo oranayo ninka ugu da'da weyn inuu qabto xilka gudoomiyenimada si kumeel gaar ah waxaan kaloo dooranay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ayaan dooranay waxaana xilkooda ay hayn doonaan muddo cayiman ilaa lagu dooranayo gudoomiyaha rasmiga ah haddii ilaahay uu weydo gudoomiyaha xilka loo doortay magaciisi waxaa la yidhaahdaa xildhibaan Xaaji Cali Xasan Isaaq soo istaag si aad lagu wareegto mas'uuliyadda culus aad ula wareegto soo istaag hase yeeshee waxaa kulankaasi lagu dhaariyay gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka maanta la doortay dalka diinta dastuurka lixda gobol koonfur galbeed ee Soomaaliya wallaahi billaahi tallaahi wabillahi tawfiiq kadib ayaa waxaa munaasabada ka hadlay isla markaana hambalyeeyay gudoomiyaha cusub iyo gudoomiye ku-xigeenka waa mas'uuliyad aad u weyn alxamdulillah aalamiin aad ugu faraxsanahay in xildhibaanada koonfur galbeed ee Soomaaliya ay doortaan si ku meel gaar ah waan hawl aad u adag insha Allah waxaan ku rajo weynahay in hawsheedii inta muddo gaaban ah si habsan in ay u furto wabillahi tawfiiq gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee kameel gaarka taasoo yacni dooradii lito gobol koonfur galbeed Soomaaliya baarlamaanka sharafta leh ee dooradii inta ay ku jiraan doorashada rasmiga ah inay halkay yacni sidii cadaalad ka dhisanta wadanimo ka dhisanta islaamnimo ka dhisanta inaana ka gududo ilaahayna saasa ku rajeeyay iyona wayba marna reeye kama asantiin xilka sharafta leh ismu marna in doorantay Abshir Maxamed Nuur Mandela Royal